calaykum, maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, hadba kaa idin tahay. Insha Allah maanta waxaan isla eegi doonaa qeybtii labaad ee ah programming languages iyo waxyaabaha loo isticmaalo. Qeybtii hore waxaan hore ugu soo hadalnay Python iyo waxyaabaha loo isticmaalo iyo application waxaa lagu sameeyay qodobo badan ayaan ku soo falanqeynay. Qeybtii labaad waxaan ayadana ku eegi doonaa hadduu eebbe ka raali noqdo C++. C++ waa mid ka mid ah programming languages ugu caansan almost all kambaniyada oo teknolojiyada way isticmaalaan, oo sida ay noqoto si un bay u isticmaalaan ku dhawaad mid kasta ee shirkad teknoloji ah. Sidoo kale ayadana C++ waxaan ka eegi doonaa waa maxay horta C++ nafteeda, sideed u baran kartaa, halkeed ka baran kartaa, maxaa loo isticmaalaa C++, yaa isticmaala, yacni kambaniyada isticmaalo, qaar ka mid ah software ama application ama website lagu sameeyay ama waa isticmaala C++ iyo sidii caadiga ahayd bonuska. C++ waa general purpose programming, that means ma aha wax hal meel loo isticmaala oo isticmaalkeeda meelo badan ayaa loo kala isticmaali karaa. General markaa leenahay waa multi purpose. Ninkaan lahay Diane Strostrap ayaa sameeyey, waana Danish computer scientist, wuxuuna sameeyey sanadii 1979. Waana extension of C oo qayb Cdii waagaasi jirtay unbaa wax lagu sii daray iyadoo lasii horumariyey, oo sidii UB iyo waxyaaba sidaas lamid ayaa lagu soo daray, oo inta badan qofka C hore u yaqaanay C++ wax lama ahanba, oo marka laga reebo dhankaas UB inta kale waa in badan oo ka mid ah waa caadi sidii Cdii camal. C++ marka la disaangareynaya ama waxa ujeedadeeda ugu muhiimsan ay ahayd in lagu programming embedded systems. Embedded system marka aan leenahay waa wax walba, qalab walba ee diyaarsan, softwarekiisa waxyaabihiisa diyaarsan adiga aan arkaynin laakiin isticmaalaysid. Maxaa tusaale u ah, waan naqaanaa barcode readerka, halka lagu akhriyo haddii aad tagto meelaha supermarketyada iyo waxyaabahaas oo jiiq lagu siiyey, meel dheer ha aadin, saacadaada waa embedded system, saacadda caadiga waxyaabahaas camal ayaa lagu programmiya. Marka C++ waxay aad ugu fiican tahay oo loo isticmaalaa sababahan soo socda. waa first, marka hore horta speedkeeda waxyaabahaas ayada waa aad ayay u sareysaa. Efficient waa mid ku habboon oo waxyaabaha isticmaalay software marka la sameynayo. Waxa markaa efficient ay ku tahay waa managing system resources. Waxaa la lahaa inta badan C++ uma kaaga baahna hardware fara badan ama hardware oo high tayo sare leh, waxyaabahaas kaaga baahna, oo waa system resource ay u baahan tahay mid iska yar ah. Sidoo kale waa reliable, waa isku halayn iyo waxaas waa leedahay oo secure. C++ waxay martay 3 update oo waaweyn. Way jiraan waxyaabo ka horreeyay laakiin kuwan waa kuwa majorka ah. Waana 2011, 14 iyo 17 ayay soo kala baxeen. Sida aan arkaynin waxaa looga magac daray oo sanadkii mid walba uu soo baxay update-kaasi. Okay, sideed u baran kartaa? Waxaa la lahaa horta programming wax walba marka aad baranaysid waa inaad hadaf ka leedahay, sax? Hadaf haddii aadan lahayn waxaan meel aad ka gaarayso ma lahanba. Laakiin marka kaasi aad kasoo tagta marka hore wax kasta asaasiyaad ayay leeyihiin, oo marka hore asaasiyaadka inaad barataa. Marka asaasiyaadka way badan yihiin oo intaan kale ma aha, laakiin waa qaar ka mid ah sida syntax, data types, variables, loops, waxyaabahaas ayaa amaanaya waxyaabo kaloo la mid ah fara badan. Sidoo kale advanced, haddii aad dhisay asaasiyaadkii hoose waa inaad advanced usii gudataa. Intermediate ayaa lahaa inta badan oo u dhexeeya, laakiin waa la isku dari karaa labadooda. Advancedkaas maxaa ka mid ah markaa sida objectives ay leedahay, classes ay leedahay, standard library ayaa jiro oo caan C++ ay leedahay, IO streams, inheritance, waxyaabahaas la midka ah. Kadibna project samee. Programming language kasta oo aad baranaysid saa hore usoo sheegnay waa inaad ku sameysaa project. Haddii aadan ku sameynin project, that means
luqadaasi maadan barin. Waxaa marka project e2c types aad ku samaysa ayaad dhihi kartaa waan bartay. Projectyaas aad sameynaysidna inta badan dadka badan saa hore usoo sheegay waxay sameeyaan inay iska soo boodaan wax weyn ay la soo boodaan. Ha sameynin taas, wax yar ka bilaab, kadibna in yar oo midba midkii hore aad u samaysay mid ka sii weyn sameey. Kadibna haddii aad awoodid ama aad samayn kartid waxaad contribution aad ku darsataa open source projects ka jira qaar ka mid sidoo kale waxaan isla eegaynaa halkaad ka baran kartaa. Waxaan ku hormaraynaa sida caadada ahayd website-yada waxaan ugu horeeya Udemy oo paid ah. Waad iibsanaysaa koorsooyinka ku jirkaas W3 Schools, Codecademy, sidoo kale programs.edX.org isna website kala caan ah. Way badan yihiin oo intaan kale ma website-yada, laakiin sample u baan usoo qaadanay halahan. YouTube channels haddii aan isla fiirin freecodecamp.org iyo Calvary iyo Adel Nassim, ninkaas ay dhahaan oo asana carabi ku bixinay. Haddii aad carabi ku fiican tahay ninkaas ayaa ku sharxay iyo kuwa kale fara badan. Sidoo kale buugaagta haddii aan soo qaadanay 3 xabo ayaa ugu caansan, laakiin intaan kale ma way fara badan yihiin. Saddexdaani waxaan kaloo soo qaadanay aan ku soo darnay tii hore ka duwan dadka qoray. Qofka buugaasi qoray waxa ugu horeeya C++ Primer, Effective Modern C++ mid ay dhahaan, Problem Solving C++. waa ay badan yihiin oo intaan kale ma ahan, laakiin waa sample halahan. maxaa loo isticmaalaa C++? waxyaaba loo isticmaalaa waxa ugu horeysa hore soo sheegnay embedded systems kala duwan. waxyaabahaas oo dhan waa C++ ay ku programsan yihiin sida ay u badan yihiin. waxaa kaloo aad u isticmaala operating systemyada. waxaan ugu caansan Window in badan oo kamid ah C++ ay ku programsan yihiin. isdhihin laptopkaada Window ku jira maalin walba aad isticmaashid iyo C++ aan aragtid isma dhihin noomaleynaa kuley. Game development ayayna zaid ayaa loo isticmaalaa oo saa hore usoo sheegnay waa resource-ka C++ ay kaga baahantahay maadaama uu iska yar yahay. ayaa in badan gameskan waa aragtay oo graphics oo waxay u baahan yihiin speed. sidaas darteed game development zaid ayaa loo isticmaalaa. telecommunicationada kala duwan aad ayay u isticmaalaan. IoT mid ka mid ah maadooyinka la rajeynayo inay mustaqbalka ay qabsato waa Internet of Things, waxyaaba automation ku dhacaya. waxyaabahaas ayuun zaid loo isticmaalaa IoT-daas oo ayuun maadaama hardware ay la xiriirtay database-yada kala duwan sida aan noo imaadano example ka mid ah ayadana waa lagu sameeyaa. sidoo kale financial tools kala duwan ama applications waa loo isticmaalaa C++. scientific research kala duwan ayadana zaid ayay u isticmaalaan oo back-end ahaan ba ha ahaatee. inta badan web browserada ayadana zaid ayay u isticmaalaan dhanka server side-ka ee weli. virtual realities ama VR apps-ka maalmahan zaid usoo badanaya ayadana waa isticmaalaan C++. flight software-ada kala duwan zaid ayay u isticmaalaan ayagana oo dhanka flight. medical technologies-ka kala duwan waxyaabaha caafimaadka loo isticmaalo intooda badan C++ ayay ku programsan yihiin. waa embedded system sida ay u badan yihiin. movie production-ka ayagana zaid ayay u isticmaalaan shilimaanka waxyaabahaas ama waxyaaba filmaan lagu soo saaro oo dhan ayadana inta badan waa C++ ay ku samaysan yihiin. haba ugu horeysa kaamirada oo embedded system ah. yaa isticmaala C++? sida la sheegay waxaa isticmaala C++ 1274. waxaan hore usoo dhahnay ku dhawaad company kasta ee technology waxaa isticmaala C++ si unbuu u isticmaalaa. waxaan ugu caansan Google iyo Twitch. Microsoft waa isticmaasha saa hore usoo sheegnay oo Windows wuxuu ku samaysan yahay C++ intiisa badan dhanka oo back-endigiisa. Nancy shirkadda ayadana wakaalada warbixinta ayadana zaid ayay u isticmaashaa. Facebook zaid ayay u isticmaalaa waana back-end ahaan u isticmaalaa. Cisco shirkadda networking-ka caanka ayadana waa isticmaashaan. LinkedIn website-kaas asana ama application dhaasna zaid ayay u isticmaalaa. Google waaba san taageere koowaad aad ayay u isticmaalaa oo dhanka back-end-ga ayay u isticmaalaa server side-ka Figma waa online photoshop-kaas asana zaid ayay u isticmaalaa. Telegram messenger-ka aan naqaano. airlines-ka kala duwan ayagana waa isticmaalaan. Opera asana browser-ka zaid ayay u isticmaalaan.
365 ayna sidoo kale zaid ayay u isticmaalaan. Adobe halkan iga qabso applicationada ugu badan ee Adobe waxay ku samaysan yihiin mostly of them waa C++. Ma ahan Adobe oo kaliya inta badan applicationada maxaa dhahaye graphics-ka ah application graphics-ka ama website-yada ama software graphics-ka ha ahaadaan photo editor, video editor waxyaalaha lamidka ah design-yada lagu sameeyo intooda badan C++ ayay ku samaysan yihiin waayo resource badan ay u baahan yihiin graphics-ka sidaan wada ognahay C++ intaas ayay ka caawinaysaa iyo waxyaabaha kale lamidka ah. Waxaan intan isku eegaynaa qaar ka mid ah software ama application ama website lagu sameeyo ama C++ isticmaala. Waxa ugu horeeya Facebook oo back-end isticmaala saa hore usoo sheegnay, Google Chrome oo isna server side ama back-end Opera sidoo kale, Windows sidoo kale isna wuu ku samaysan yahay, Apple OS inta badan isna C++ ayay ku samaysan yihiin, MySQL database-kaas caanka Soomaalida xaggooda ka isna sidoo kale C++ ayuu ku samaysan yahay. Firefox asna website-kaas sidoo kale browser-kaas wuu ku samaysan yahay C++ ayuu aad u isticmaalaa weliba dhanka maxaa dhahaye back-end-ga. Sidoo kale website-kaas asna Bloomberg ay dhahaan oo waxyaabaha badanaa waa asna website oo dhankaas iyo ganacsiga in badan zaid uga hadla oo waxyaaba news iyo waxyaabahaas u xilsaaran yihiin ama kambaniyada iyo waxyaabahaas la shaqeeya wuxuuna ku base garaysan New York asna zaid ayuu u isticmaalaa. Sidoo kale Infosys Finacle website asna waa software kale oo caan oo dhanka bangiyada zaid looga isticmaala sidoo kale asna wuxuu ku samaysan yahay ama inta badan uu isticmaalaa C++ iyo waxyaabaha kale ee lamidka ah. So what's next marka waxaan isla soo aragnay waa maxay C++, sidaad u baran kartaa, halkeed ka baran kartaa, maxaa loo isticmaalaa, yaa isticmaalo, qaar ka mid ah software ama application ama website lagu sameeyo ama C++ isticmaala. Haddii intaas aan isla soo ogaanay marka waxaan rajaynayaa in badan had kadib aadan isweydiin doonin waa maxay muhiimadda C++ marka laga soo tago dhanka code-ka aad wax badan ka fahamsan tahay. Dhankaas code-kana adiga unbaa isbari kara oo cid kaa xigta ma laha maanta. oo haddii aad u baahan tahay waa inaad baahidaas aad u qabto inaad baratid aad ka dhabaysaa hadaf cad aad leedahay unbaa kaa xigta maanta inaad baratid oo anigii aan soo sheegnay meelaha aad ka baran kartid dhammaan. Marka insha Allah barnaamijkeeni qaybtii labaad C++ aan u hadlaynay intaasi ayaan kusoo koobi doonaa. insha Allah waan sii socon doonaa programming languages way badan yihiin qaybo kale ayaan ku sii dar doonaa inta karaankeena hadduu eebbe karaal noqdo. haddaba marka yaad jeclaan lahayd inuu next noqdo inta aan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi